kama hadhin labadan oday baasha horta si aanan u aqoon bay u soo kala hormariyeeno iyagii baa ugu soo horeeyey annagu awal dee ammaanta iyo waxbaan uga sii qabax siin jirnayoo ka tegayo yaa hase ahaatee gabagabaynu joognaa runtii hal qodob waxaan qiraynaa cawaale waqtigii uu la soo shaqeeyey golaha wasiirada inuu ahaa nin dhallinyaraa aqoon-yahana firfircoon kelmadiisa sheegan kara marka meel kasta la joogo haddii loo baahdana ingiriisiga iyo af soomaaligu isugu mid yahay hadba kii ku helo labada dhaqanba aada u fahmi kara oo ah dhaqanka Frenchiga iyo dhaqanka Soomaaliga wasaaradda qorsheyntu waa waxyaalaha ay u baahan tahay qayb ka mid ah inaad body language-ka ama culture-ka ama aqoon ahaan aad gaarsiisan tahay inaad dadka aynu la macaamilayno aad aqoontooda fahantiin ma aha eraya ingiriis aan aqaan laakiin inaad si dhiiba u fahanto marar badan buu xoogaa kelmado waaweyn oo ingiriisiya markaan tuurto ayuu marar badan hakiyey korow joog anna askari baan ahay oo in la iskaga dilaaciyaan jeclahay guud ahaan runtii waxaa ka muuqata xirfad iyo karaamo iyo inuu aqoon-yahan u yahay ummadda reer Somaliland meeshuu tagana haatan waa nin uu naftiisa ku filan awalna ummaddu u shaqeynay isaga waxaan leeyahay saaxiib waa la soo noqnoqdaayo bahashu mar baad hay-adaha ka soo shaqayn doontaa iyo baanka iyo Nairobi baad soo fadhiisanaysaa marna New York baad soo maraysaa 3 sannadood ama 2 sannadood xisbiga kulmiyana waad joogaysaa dabeedna waad ku soo noqonaysaa bahashu halkii bay ka soo bilaabaysaa waa 20 sannadood ka hor baan wasiiraha 20 years ago baan wasiirka xanaanada xoolaha. It took me 17 years to come back. adiga se waxay kugu qaadanaysaa 2 sano bahashu waa nooca maalinna waad ku jirtaa diinka maaragtay bahalka diinka la yiraahdo haddaad u soo dhawaato surka ayuu gashadaa hoosta siyaasigu waa sida diinkaasoo marra surku hoosta gashada marra wuu la soo baxaa marka luquntu 2 sannadood unbay ku laabanaanaysaa ilaa sanad waad la soo baxaysaa wasiirka cusub runtii cawaale haddaan ugu celiyo intii uu joogay wasaaradda qorsheynta wuxuu ku soo kordhiyay phenomena cusub ama qaab badan oo fundraising oo reer Somaliland ay mahadiyeen waxaan filayay in ay SDF-tu ka badanayso anigu hadda biyaha waa runtiisa madaxweynuhu aad iyo aad baanu aniga isagu isugu dhoweyn xagga biyaha sababtoo baahidu biyuhu waxay noqotay very crucial aad iyo aad bay dalka oo dhan u taabatay meel kasta from Hargeysa ilaa iyo meesha la yiraahdo Lawyacado way taabatay meel kasta oo aad Somaliland istaagto biyaha laga hadlay madaxweynaha iyo anigu waxaanu si hoose isaga ognahay in biyuhu dalku ay yihiin meel adag maray aad iyo aad buu ugu shaqeeyay wasiirku biyuhu mid kale waa infrastructure qaali ah oo aan dadku aad u fahmin marka aad wasaaradda timaado iyo marka aad ka shaqeyso baad fahmaysaa hadda $10 milyan haddii la yiraahdo ood weyna maanta biyaha loogu qabto 10 milyan waxa la waxay wax ka qabanayaan ma jirto sababtoo infrastructure-ka ayaa jira ceelka la qodaya waa $500,000 tuubada 60 kilomitir la qaadaya waa $500,000 haddii $1 milyan la siiyo wasaaradda caafimaadka waxay ka samayn kartaa 40 MCH laakiin haddii biyaha la siiyo waa peanut invisible sida daraadeed mashruuca Hargeysa ee aad aragtaan boqolkiiba 72 milyan lacag ka badan baa gashay and still
وأباهي لعب سيدا درادد آد بو إيقنا الشقية وزارة وبيوه يهين وحاضر وزيرك عصب حالا هاي وزيرك عصب وانين خبيرة سيدا الله الشاغي وقت فربضان يا تايم فربضان أيو أقوانت السوق لي سومالي لانا وقت يجي وقدم بيه أنا وصلنا لسلاي هذا ده أبغى كي سنة قدم بيه I think that هو ويرى قريني رجي رنتي وزارة واقع هذا حولها رجي سيقول رجي شيخ فتنري سكول رجي لو كان أيوها وهذا يرهدو ترانوفا أيا كانت يساق أي ركلة أو PhD مركا قديدو يعني يساق بدأدي وانا تابته يساق قديدو سمويني آليات بانو مدفر بدن السنة غاني وصاحب كي أنا وقتها صوّد الشقيني تايم صدق سنوات كهر بو PhD ها وأتقرأنا سا وقتها وياها أقوياها صومري وحنا إسلاهي وزارة دي كوها بوني ومدة وغشقين لها أيو مانتي أنا وكوها الله يا مقع مسؤولية وزارة بيها وحن آل سودوين يا وزيرك عصب وعن آل سلاها شيء وشروع قاضي أيو كفوقين يا هرمر فربضان وإسبدل أيا وزارة كم مغضي أنتي هو قامنت عصبي تشوكتي أما دي شيء هالنقطة أما وزيرك حجينك هالنقطة أما وزيرك هو قامن يا هالنقطة وزيرك عصبنا وحن له هول كما داري ولو هوقدي والله قاعدين نقول الدجال كيلو يرين الصديق هي هذا كان يرين الدجال كهذا يرين dadkii biyay iga raba aad baad u mahadsantihiin wasiirka cusub waxaan ku filaynaa inuu noqdo nin karti iyo hal adayg nin wax u qaybinta ummadda ku dadaala nin walasiga ummaddu leedahay si fair u distribute karaya nin aan nin deegaan u dhigaysan oo wasiir u dhigaysan wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta وزارة سيدا لقوا يقالنا عالم كوحوي وزارة قرشينتا إيوه coordination هرمرينتا ذات كلا قبطة وحانو فرن صاحب كينا وانو يسجري وحا أقول بدني وحوي إني ديقاها كلا ودودو إيا إنا نوفر لابن دين إيا إن سفارة ومدى اللوغو قيبية واحد هداي تهي وزارة هداي تهي قبل هداي تهي دقم إن سفارة وحلوغو قيبية الصومالي لأنه وحي وحكونا قوليسا يدو وذا جرتا وحق الصومالي لأن ليه هاي اللو وذا النبي مسؤولية ذا كوان أيي كمتا مركا عاد مسؤولية ذا كسو كرونو وحي من دون فورسس اللي يرهضو قلبات إيا باري أيا آذو الشقية ما هو كوسي شيء فورسس اللي يرهضو قلبات إيا باري يا آذو الشقية قولada barigu waxay yiraahdaan waxba nama soo gaaraan qolada galbeedkuna barigu waxay yiraahdaan dhulkii xaggaas u jira qolada galbeedkuna waxay yiraahdaan dadkii baa xagga jira inta la rabo inaad dhexdhexaadisa waa adiga oo kelmadahaasi ku iman doonaan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in aqoonyahan yimaado wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu